ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Waxaad ku soo dhawaataan Sahanka Dunida. Isku day ugu yaraan fiidiyogan in aad like gareyso. Mahadsanid. Duweya waa mid ka mid ah toddobada imaaradood marka la eego aaga halka baaxaddeeduna ay tahay 4110 kiiloomitir. waxayna ku taalaa koonfur bari ee gacanka Bershiya, waxayna kaalinta labaad ka gashay 20 magaalo ee ugu qanisan adduunka. Inkastoo dhowr goobood oo qadiimi ah oo ku yaala Imaaraadka laga helay qalab dhagax ka samaysan, haddana dadkii ugu horeeyay ee dega Duweya wali lama aqoonsan. Markii ku dhawaad 800 oo qof kuwaasoo ka soo jeeda qabiilka Beniyaash oo uu hogaaminayay Al-Maktoum oo ay degeen aaga Al-Qoor ee magaalada u kala qaybisa 2 qaybood. Duweya waxay ka mid ahayd meelihii uu Ingiriiska ka faala qaaday xagga siyaasadda iyo difaaca 1968, laakiin aragtidani kuma aysan qancin guud ahaan wadamada la isku yiraahdo Imaaraadka. Dhaqaalaha Duweya inta badan wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga, sidoo kale qeybaha dalxiiska. Inta badan Imaaraadka waxa lagu kala gedisan yahay ama lagu kala duwan yahay dhaqamada. Waxa uu sanad walba qaabilaa malaayiin booqdayaal oo ka kala yimaada adduunka, iyagoo ujeedkooduna yahay ganacsi ama doonaya raaxaysi. Xilligii casriga wuxuu bilowday 1970kii. Tan iyo waqtigaas magaaladu waxay sii waday inay kasbato dakhli aad u badan. Inta badanna ganacsatadu waxay u imaanayeen saliidda iyo ganacsiyo kale. Tanina waxay gacan ka geysatay qulqulka muhaajiriinta tirada badan ee ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee Lubnaan ilaa sanadkii markii uu ahaa 1979kii. Deked ayaa laga sameeyay aaga Jabal Cali laga soo bilaabo 1985tii. Dekedu waxay ka mid noqotay goobaha shirkadaha ajaanibta. Inkastoo dagaalkii kacaanka ee 1990kii uu si xun u saameeyay oo ay dad badani ganacsigoodii iyo lacagtoodii kala baxeen aaga, haddana magaaladu waxay dib ugu soo laabatay horumar iyo barwaaqo muddo gaaban. Qodobka ugu muhiimsan ee soo jiitay shirkadaha Duweya ayaa wuxuu yahay Duweya in ay tahay meel xur ka ah canshuuraha dunida oo ay bixiyaan